noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la raba in laga tallaabo ee keebaa diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid bise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo uu islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka waramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbat alislaami aluulaa siday uga baxeen waayo altamasuku biddiini waalictizaazu bih fii waqti alqurba arrin fudud maaha walidalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa saxiix aljaamici saqiir can anas ibni malik xadiid ka soo arooray ya'ti cala annaasi zamaanun alsaabiru fiihi calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr meeshuu inuu challenge yay buu nebigu tilmaamaya dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta yani dhuxul daba inaad qabataa waa challenge adag waqti ay sidaa diintu ku noqon doontaa iman doontaa ama xadiidka ibnu mascuud warinaya ina min waraa'ikum zamaanu sabri litamasuku fiihi ajru 50 shuhadaa minkum maalmaha dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamayay sida awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yidhaahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiyaa ka dhashay nebiyo badanoo qur-aanku ka tilmaamayo dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiiyo maxay ah nebi yuusuf walaaladii oo iyana culammadu badhleeyeen nebiye markii dambe noqdeen ambiyo badan nebi sulaymaan nebi huud maaha sulaymaan aabihii daawuud nebiyullaahi muusa ambiyo badan oo reer banu israa'iil oo dad saalixiina qur-aanka ka warramaya bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay ka mid wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israa'iil waxaa ka mid ah a'imma dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xejistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yani laba midnama gelin waxaan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina umay dabcin labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahy ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaasi reer banu israa'iil bay ka mid ahay waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub kalena inuu reer banu israa'iil ka mid yahay bal gruubka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyey marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi oo dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إلهي وحده كوا قداشود وحمري qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalay waliba aabihii hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitaab asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lexa jeclo badan yahay waxa si fudud u soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolahaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sayidska dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayugfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawar wasideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa qafuuru raxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa qafuuru raxiima ilaahay baa inoo dhaafay laakiin maaha qafuuru raxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyahay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mida hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu yidhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhiro inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yidhi waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi masaka oo bitadciifa luqa alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado waxaa laga yaabaa dumar qura qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kani waa qof raba maxay inuu xejisto kuwa xejisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajarkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu dhahno insha allah sayukfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisno ku binayno وعلى هذا المذهب قادرنا يينا نقادرنا مذهب التمسك بالكتاب إنه نحكي سنه جيل كهر الصحابة دو سيداي وقبحين صور يركوبا بما حد كسيني أفرتي السورة دو القرآن كوجه الرئيس ودقة علماء دو حيسكوا أفق سيهين أفر سورة دو قيبا وجه الرئيين القرآن كوسه ردقين والله جاي أبغى الروايات كويس نافين يا أفرتني سيو كله الرئيين أنا دركته لكن أفرت سيني هنا أفرت وجه الرئي أي بديبة علماء دو التلمامان وسورة العلق أنت وجه الرئيسة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كوجه الرئي وسورة المدثر آيات كوجه الرئي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوجه الرئي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوجه هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون حول ما ذو يدهدان waxyigii koowaad ee nabi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheeginay si xooggan loogu sheegay yani
dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nabiga uu yidhi iqra uu nabigu lahaa ma ana biqaari xataa markay neefta ku dhagaadhow sii daayo uu leeyahay iqra waxay culamaadu yidhaahdaan الأصل في التعليم وإن سفد ضل يسوق الشيء لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وحفظوا دينان وهينين لسوت شيء ديو أفرت الشيء محي شيء يعني وجوه الرأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هي النون والقلم وما يسطرون هاي علماء يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لغو حجين كرين يدو جاهل ليي إن وحبل حجين كرين أصل كدين تونا إن كوسا ليسان تاي عرب أختي جدي وحل غيابا أقون دتك وقدام بيينا هي baahiyaha qabtay kale waxa laga yaabaa hadii adiga lagu oran lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaalada hal raadiye kana raadiye wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin mas'alatu tawxiid wal ilmi bay dhaadeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhira la ogaado ilmi baa lagu xijin karaa waa shayga koowaad ee laga fahmayo bay dhaadaan shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isaga dacwo wada ama isaga dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo groupkaaga isku dayay inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya sawgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuhal muddathiru qum fa andir wa rabbaka فكبر كان استودوبا يوبا ليلي كعودين شيك ربي كان وينيه وثيابك فطهر نفط يا قلبي يا مرض يا وحا غردن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجروت ولا تمنن تستكثر وحاد ودنا الهي درتي قوت حلا كل رادين ادو كبط صريها صبيني ولربك فاصبر جدك هداد قادنا مشاكل بعد لكل ميسايه صبر وقت كيسال لي يعني وحلقوا بلابه نبي محمد هدينو دانا عليه الصلاه والسلام وابا ايات كلا بعد كسو دغاي سدا علماء بدن قبطو علمي ugu horeeyay intuu leeka waa iqra iyo waxoga riyooyina cilmiinta soo hay hadana iyadoo cilmigu inta ku kooban yahay waxa la yiri maxay mabda afaafi mabda bilow idan waxay dhahdaan خير الدفاع سليس الدفاع وحوق في عم بين هذا أدقو ويرر قشة إن هذا كمرك الوارك الله يدور وكي وذا كيم بدي شيء حقين وقدو أدقو إن تهاي قفك وحرادين إياه اسكت ده يدك كينو الراديو لكن إنسانكو ربط الترادة بدن لا وما أتكيسته إلا إيانو إلهي حديد دبأ لليمو يعني سوغيت با وحل يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوبا يو كع كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidh kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxa sooraysa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tiraahdo war bal waxa ama hema inaad wax ka weydiiyo inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay
ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortibay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila kanis dadayow kanis duuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi maxaa lagu cileeyey innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kullamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisaa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a qaar sidii loo toorjar garaynaya iyagoo tii u dambaysay ee laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi mu'miniinta waxaa ka mid a rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheego qadiyatu sidqi idan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballana ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والركبة إلهي إليه كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمشة لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس يا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay إلهينا وحطوا الماما قولة تموح لقسفين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لم بيكعب سنة يعني دات شقدين لغير يرقى على الدرات كير عب سنة لكن قولة وحي كعب سنة يعني ما لن قلبي يدا إيو قرات كي يندو يوحبق القلمان cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadooda iyo kooga kan waxaan leenahay koow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaru wa kaanuu biaayatina yuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaadee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa
waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yahay الاعتزاز بالدين يعني ما waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu xiibsanaya ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay de waxa qiimo badan leenu xagaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha madiinka qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna barayeen inaynu diinteena muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin al-ictizaazu bidiin uu ka gedisan yahay diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay persia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya dhowr boqoloo kun oo gaala iyo soddoneeyo kun oo saxaaba baa is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya casharatu lmubashiriin nin ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhahdo oo jananadoodii waaweynaa ee laga dambeeyey ka mid ah markaa rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakerayaan inuu ogaado wuxuu sacad weydiistay inuu usoo diro cid wada hadal bal uu dhex maro nin baa loo diray wuu soo celiyay mid kale bal ii soo diray waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tegay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tegay maalan mid ka midun haddaynu soo qaadno ribciy ibni caamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaalo doon hadday tahay inaan dhaqaalo bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carbetiska ayaa la wadhay dhulaad u ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda faras yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiy ibnu caamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xagga usoo dhaca waxay yidhahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adigoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waan iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سن إلهي يقول إن يدتك الضوما ونقضان ودتك حرية هلان فحنوسع عن أبو لين cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay ee carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso
waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبدك الدنيا كفي عن وتاجن إنه معتز بالدين دين تيسا وحول كان تاينا وتشيرين إنه الروميسية تاسو كان سنة نقف كان الدين تيسا إلى شده إلهي وحنا وحين لا حتى هدي سيدا كرونا الله يدين كحقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورها اللي دنينا بقى ليلوها مروانينا إذن كقرية هدي إيمان وتشيروه داد ربيسان تاي ربي جاي كحولان تاي هذا كوريا صلى الله عليه وسلم تلمامنه والصحابة دان غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغدينا ان مركي بيت المقدس مسلمين تاي فرتين بيت المقدس نيكا فرنا عيدا كاسنا نيكا 10 المبشرين هو قامني عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaananu idinku heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay وعرب فيه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا يسقفرها لو ديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وسوس عليه مركو ماشي يروسو شري أيو حصامر يدل دير يورب هلا يورب مدنا دبتنا الدابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيو الله بدي كبودنا هلكم كسوقات نيف كيسينا سوه جامي الله بدي نسك صار حصادي أبا عبيدة يا عيد مدي مسلمين ترقي سود ويني يا كهر يمو أبا عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني إن مقالة دتك دي مدح دينا يكو أركان سيدنا أدقو نكن فايدني عقار دوبا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريجي ودي بصدق أديك عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة وحن شعلان الله ميدان أديك هينون يدا أبا عبيدة أديك وكاحشوني أقول لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنه ياي مركا وكحم يقولي لو غيرك قالها ميدان أديك هين موركا سكا صوبح بولي دبتنا عمر روح ودي بقول نقضي التاريخ دودي أبا عبيدة بوأوجي لكن وحو يرربون isagoo amiirul muuminiin ku muuqda amiirul muuminiin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad naga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam ومن ورائه صحابة الله هذا يا وحليلي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وهي تشد صحابات كسوغان تيبا إلهي لي تشد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسية وحي جاية دين تلقو سودة شينا شرف بوكوية هي أديك يطلق بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا مركا وحي قال السنين ننسي السنين محي وحليته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أو حلاني شيء كوات حويان إنه غربة كقبحنه وحي أهل كتاب كهوري إلهي كتل مامين كقبحيين إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي إنه معتز كوهانه ضد كفانية وانقرصنين دين تترين إنه نقانه وحين لكل ما مركه إنه وحن شيء إنه معناه دماها nolosha dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeeday inuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays ka hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaal oo qura maahe geesinimada adabiga aba ka roon kalimatul xaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xajisan karto ولذلك با إلهي غير بنو إسرائيل كي هاقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلهي صبرا والله الصبر لك تبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالو إذن كهر إيمانا ياي يأيدن كصبر بدن نبا إلهي ليه ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهينا كعب صدى وقوليسان دون تنبا إلهي ليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهرنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو صف ضد وحوضي كرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsaniyo in sida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay usulubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan ولا النبي قوت مي يقعد يكو تشيس يو عايا راسا waxay ku yiraahdeen assalaamu alaykum assalaamu laamka laga boodaya laakiin waxa la iska dhigaya in iyadii la yiri assalaamu alaykum wa geeriyo korkaaga haato waa habar assalaamu alaykum nawa rabbiha ku xifdiyo nabadgeliyo wana korkaaga haato assalaamu alaykum nawa mawd iyo geeriyo balaayo korkaaga haato dabeetana عايشة أنت عروتي مركبة واحد تري بل وعليكم السلام واللعمة إذنك عرض على يجريد سينا عاد الشيء وكركي إن إذنك ها طبيعي تري نبي عليه الصلاة والسلام السجوا كون مغلى يوحي يراهدين عايشة أنا مغلى يوحي تري أيوة عايشة هذا تلصينا يوحي لي عايشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكسيد بعسن تتكون مريه يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسل الله سمايو أي الله تعالى سبحانه وتعالى عايشة وحي مود نبغينا أنو مغلين ملا دمرتني يعني وركبانو مغلينه أو لم تسمع ما قال وحي كهد لين مياد مغل إلهي رسول كيسيو قد قلت وعليكم بنقول ومغلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحنو قدن لنا هي حديث الرواية إمام مسلم وحي الإمام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم وريني الرجيني يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنو قدن لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمان تودان حج سنو تا معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنفي يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهميه واحد لقى فهميه إنه عقيدة إسلامية يدقق كإسلامية ينقض الموضوع قضية كلام تلمامية وحويان
وإننا كلا قرنا محان قادنا محان كتجينا وإننا كلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إنا ذوبان مسي اندماج halkan markaad joogtaan erayaal la idin sharxa la yiraahdo maxay assimilation iyo integration dadka baadbay yiraahdaan geetobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna way u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geetog waa intaad meel isku qafilso xira yareeda wax walba may tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho وارد حقنا صابحي كدر سمكونا دوا هذا أردن تاي وسكملنكو وحصوا هراي وحيجونا ينقوا عديان إننا نبغى هنين الفهم نلا إذا ده integration مال والبوح على لي integration politicians يعني ما كسياسيين تي بلشة كستو homogeneous ويكفوا ضد البلشة ده كله جديسن ان تعدد كويو نوعيات كله جديسن وحيابا قاركود ويكفي عين بينه لكن سياسي قوم فينا سياسي وحو جعلي ضد السوء أركتيو اسكو دنو تشيدو ددن قرا ودا كحيو لكن دد جيسله وكو يرد بدن تاي marka iyagu integration ka ay sheegaan inta badan siyaasi u badan yihiin laakiin adigu inaad integrateto waa sax laakiin laba weerood waa inaan kala garanaa mal farq بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حاول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كضيا نو أو حول بكا قاضنا يعني وحكا فائدنا أقولنا ككرسنا وحوين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نين إنه كقاضنا ويا لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كني عبادات كني وحنين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دون تنبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهرية تاكا يدودودون صحابة دي دمنتت كهيدا وحسك صور عسيا دولك حريسة يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا علي قد مسع علي هدي قلان وكذا بقى لي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهود يا نصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلام مالك قالوا هدنا النبي وحولي حديث كان وكله سورنا من قبلكم بالراعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانسك يو بيرشيانكا يا كلام النبي كوري ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسيره وحوليه وحي سياسة دولية يو باب كاكو صاب سنة وضد الرومانسك يو بيرشيانكا ايا راعي دونتان هذا نقطة بدعة يدي نابورك هي وحن هلنا وحن راعي سان محي اليهود والنصارى إذن أصلكم حديث كان ينوت المامية وحنوت المامية قفك مسلم كاي وحو كغسو عيه إنو قرطو يهودية نصارى محو كغسو عيه رومانسية بيرشين محو كغسو عيه مبادئ عقائد الدين بتكغسو عن تاي محاودة ليدين تجارب الإنسانية وحي كترسن بني آدم كوحي اكسبيرينس كو كل حلي أقوانتان لشيء يودم انت أدبدان وامحي وتجاربتي بني آدم كو كلا حلي إذا وحي نقاضنا إنه يوحي نكتجينا إنه نقرنه إلهي مركو قرآن كورما يو أنبياء إلهي كورما في سورة مريم برجينها أنبياء إلهي كورما النبي بالنبي بركي أنبياء الله كورما أي إلهي اسكو صوت دوبا وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسي با إلهي وكوي إلهي النعميي ذرية النبي آدم إيو كوي النبي نوح إيو نبي إبراهيم إيو نبي إسرائيل وحي دلان إيو إنتانو هانون نبي إلهي لي إلهي آيات كيسا مركا مقلان وهو خضوعانا وهو سجودا لكن جروب كان النبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف
جروبا كوا دبا مريبا إلى هيري ووضدوا دي كواعدين محي سماية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي يسكر راعين كواس النار تقليا بالوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دل لنا لنا حي وين نقرنا وحي هاي سنة وين نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحي نوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان مو يوحي للربي إني حجستان كدعي ومحاكم ذا مثلا إلهي وحي الماما يوتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحددك كو آخر دابا إلى هيدي وركي كي أنو آيات قسيني مدين قرن أيوها حاكو دعي فانسلخ وكسيب ميبا إلى هيدي دابتنا شيطان يقروب كاسو كبير كا إلهي مركو تلمامي وحاليدي فمثله إلهي وحو مركو صوت المامي هدي إلهي دون يوقف كان يقف سقم بنقول الله وكال صوشيك وحاليدي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي قبول لمدي باليدي أي هدي اللي إريانا عربك والله الله ديا هدوسك فرديانا عربك والله الله ديا حولاك الأسيدة معها حولاك لمركة كوليل يو حادر يمان بي حراريودان مركة يسير نبات قبان ديما حراريودان أيقول لكن مركز تبا يسوي عرب لاله كم حويان هذا الدين لو شقي هذا لو شقي واسكمد إلا المركز هرب الدين بوها يو كبعه وكتاب حر دي ودات قول كتاب حر ما هذا إنه وضع وضع عرفه تتقوى وضع كتاب حر بنغني يعني ما أنتوا هيوم بحورة ياهي يعني صلاة حورة يعني إن كان دركسان حورة با يعني ما أنتوا هيو حورة وحكى له إلهي القرآن كأنه وش يجيه شيطان كوكونا ما هدد متربسين نين وضد فرديان دد أوغار ستجا وجعل إني نجا صاران إلهي وحلي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي جعل ينبغي لهينين الدين تاني دين كبحيان إيمان كدبدين قال لما يدين عليان weliba iyagoo xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraadeed baa Ilaahay yiri de kuwaas inayna waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigiyo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kale oo ku gaarsanayso meesha joogta iyo adigoo labaclabacla haday heshaan de arko waa khatar marka weynaynu kala garanaa maxaynu kororsanayna maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaas waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiyo su'aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin diintii iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan nabad helayso wuxuu nabigu yidhi من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نينك وابريسته إساقو نبط قبا في سربي أي في قومي أو في مجتمعي أو في أهلي كوريسي ريركيسي ددكيسي كوابريس يعني بلشدي أيسكو waxaa minsanaayeen ninka kuwa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fi jasadi jidhahaana caafimaad qaba cindahu quutu yawm maanta wuxuu afka galiyana haysta ka adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya yani kaasi wuxuu haystaa alamni nafsi walamni alcaqdi walamni alfikri walamni alsixi waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan
ayaa ku soo ururay laakiin ninka waa barista fi ghayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn ku waa barista mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi meel khatar u jooga marka su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataana wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan